السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال السلام وأنا مختار حاجي مركلة صاحب يال ما أنتوا حاجة على إن وحير وكوبن أو حد كبر وحليل هذا جوجل أدسنس جوجل أدسنس هو قيب كمية جوجل كاسو مارتي أنا كسمين كرتو العق ويب سايت كا إن تصالحان إن وحا منطقنا جرا منطقنا إن وحليل أودس أما أودس إن سيدا تن وكله تصالح دا يتصمارتي إن ويب سايت كي وكله تصالح مختار.com.uk odds waxa la yiraahdaa waxa website-kaaga ama website-yada qaar ku aragteen soo bandhigaan xayisiintaas waxa weeye waxa la yiraahdaa pay per click inay dadka lacag ku siiyaan macnaha qofkii idin kamid hadduu click gareeyo meelaha waxa aan ku soo bandhigay xayisiinta noocaasa waxay macnaheedu tahay in aniga lacag ii sameynaysan haddaba marka arrintan waxay qosaysaa asxaabta maartay ama dadka qaasatan website-yada iska leh website-yada maartay inay lacag ku sameyn karaan ay maartay halka ay channels u ka banaayahay waliba haddii website-kaada uu yahay mid official oo caalami ah oo maartay dadku ay aad ugu xiran yihiin oo maalintii kumanaan ay soo booqdaan waxay macnaheedu tahay the more people oo aad macnaha haysato waxay ku xiran tahay sida lacag ugu sameyn karto marka tusaale ahaan haddii hadda maartay aan maartay soo qaabka maartay ugu horeyn maartay aad u baahan tahay waxa u baahan tahay inaad sameyso halkan oo kale igra laada marka ugu horeyso waxa u baahan tahay mataqaana website leedahay ama website adiga marka leedahay kadibna maartay sameyso Google account sameyso marka Google account sameysato sidan oo kale halkan uu ku soo keenaya waxa leedahay account setting marka tiraahdo halka waxa ku arkaysan AdSense click kaas haddii markaas ku cusub tahay halkaas wuxuu ku qorayaa haddii ku cusub tahay Google AdSense sign up now marka halkaas leedahay click sign up now halkan marka click asiiso wuxuu ku soo bandhigayaa sidan macnaha account ka imaarta hadii inaad macnaha aad ku isticmaasho Google AdSense-ga mise mid kale kana leedahay markaas adiga sign macnaha midka marka adiga ka isticmaalayso okay kan igu xir baa leeyahay kan markuu igu xiro toos wuxuu keenayaa halkan markuu keeno waxa halka markuu wareyso informationada sima aqrinaysa dad luqada qoonina kulli instruction ka raacaysa halkan waxa gelinaysa website-ka rabto inaad ku xirto tusaale ahaan oo kale www.mukta.co.uk markaas aad sameyso halkan luqada ma taqaana ka dooranaysa English oo kale iska leedahay kulli Soomaaliga laga helay laakiin Englishka okay Arabiga wixii lamid marka intaad sameyso waxa leedahay agree leedahay laakiin markaas way fiican tahay inaad agree dhiin inaad policy akhriso oo waxay macnaheedu tahay policy akhriso inaad macnaha xadkaada garanayso qadaadka inta badan internet dadka maartay feedkana halka aad uga digtoonaan doonto sababta waxa weeye haddii maartay meelaha qaar aad fududaato waxay macnaheedu tahay hadhow in akoonka xataa uu ka xirmi karo ama ay ka xiri karaan marka aad akhriso policy-ga agree ama akhriyade kadibna continue markaad tiraahdo halkan ay ku soo bandhigayaa halkan waxaa la rabaa inaad taqaanaad information-kaada full ah halkan ku hareyso si maartaqaanaa kugu soo maartay ku diiwaan geliyaan halkan waxa gelinaysa mataqaana wadanka markaas adiga aad joogto maartay magaciisa geli tusaale ahaan oo kale UK markaad saas oo kale sameyso magaca halka mataqaana waxa mataqaana oo isticmaalayso macnaha account-iga macnaha nooca oo isticmaalayso individual ama business aad individual dart ka dhigo dart business ka dhigo taa doonta ka dhigan kartaa magaca halkan oo qofka maartay jaaga markii aad sameyso wiiraan adiga waxa marka aad sameyso cadid aad sameyso jaag ahaan magaca lagu soo diri doono lacagta jaag ahaan halkaas aad ku qoraysaa magaca full ah address-kaada buuxinaysaa sidoo kale city-ga magaalada county-ga meesha maqayna zonka postcode-ka kulli hadii UK joogtaan hadii kulli meel kasta joogtaad kulli postcode wax la ama code-kaaga waxa gelinaysaa zonka joogto telefonkaaga halkaas ku xareynaysaa kadibna ma taqaana sideen u ogaatay ku leeyihiin xagee naga maqashay waxa leedahay friend ama colleague dheh adiga marka inta sameyso oo application-ka buuxiso waxa leedahay choose waxa leedahay wad hadarto waa ka tagi kartaa hadarto choice-kadaas kale wax weyn maaha kan kulli submit application leedahay markaas application tiraahdo halkaas ay ku dhamaatay tusaale ahaan oo kale markaan back ka tiraahdo idii qaado kale waxay tusiyaa meesha gudaha uu keeni doono gudaha markuu keeno tusaale ahaan oo kale gudaha sidan buu ku keenayaa markuu
gudaha ku keenaysan oo kale halkan tusaale ahaan oo kale maanta oo kaliya waxaan sameeyay 25 kulli qof baa click siiyay last month waxaan sameeyay 3 pound adiga waxa 6 iyo 7 dollar u dhaxaysa inkastoo aan maartay aan saas aan ugu xirin laakiin tusaale waxaan idinku soo qaadanayo tusaale ahaan totalka adiga aad sameeyso kale daartu waa waan kartaa full maartay reports wax la jiro tusaale ahaan oo kale totalka markii la isku daro totalka waxaan sameeyay waa 12 pound hadii lacag u dhiganta 7 ilaa 18 dollar hadii 20 iska wadam okay marka inta sameeyso akoonka gudaha ku soo dhigaya adii markaas from zero tahay wali wax maada bilaabin laakiin marka inta sameeyso website-kaaga waxa ka raadinaysaa qaybaha editing-ka wax la yiraahdo connect to mataqaana AdSense markaas kadib wuxuu ku siinayaa wax la yiraahdo ID pop waxa loo siinayaa serial number oo halkaas markasto uu ku qorayo tusaale ahaan iyo Google account marka AdSense ka doorato halkaas wuxuu ku soo qorayaa ID-gaas marka waxa ku xiraysaa website-kaaga macnaheedu waxay tahay inaa markaas toos macnaha aad website-kaada ugu xirtay address-ka macnaha marka meesha dhigaysnaadii ay ku xiran tahay oo sida hadii HTML aad isticmaalayso iyo hadii si kale aad isticmaalayso meesha markaas saarto address-ka dhigaysaa dabadeedna mataqaanaa halkaas waxay saan oo kale uu soo bandhigi doonaa sidan oo kale qaab ahaan sidan oo kale hadii mataqaanaa markaas uu banner ahaan yahay xayisiinta saan oo kale xayisiintan Google ah waxay siin hadaa click siiso macnaheedu waxay tahay in ay sameysay 50 pence lacag u dhiganta 70 senti oo dollar waa pay per click wax la yiraahdo halkii mar oo click asiiso macnaheedu waxay tahay in lacag sameynayso okay intii badan marka waxaan rajaynayaa website-yada maartay ku cusub yihiin ama maartay hore website-yadu lahaa laakiin website-yadu ay yihiin website macquul ah ama nooc cirba ka hadla kulli adiga ma taqaana website-ku ma mid kaliya akhbaar ma website-ku wuxuu noqon karaa wax walba noqon karaa nin walba ra'yi aragti uu qabaa blogs noqon karaa wax walba noqon karaa website-kaaga nooc ay ku xiran tahay marka wax macnaheedu tahay hadaad ku xirto in website-kaaga aad lacag ku sameyn karto waxaan ku xiran tahay website-kaaga hadba dadka soo booqdo hadii dad badan soo booqdaan oo website-kaaga uu yahay mid macluumaad soo gudbiya oo dadka waxtar u leh macnaheedu waxay tahay inaad helayso maartay visitors wax laayo rag dad badan oo soo booqda dabadeedna halka website-kaaga uu mataqaana audience-kaasi waxyaabaha mataqaana xayisiinta meelaha aad ku arkaysaan oo kale ay aad maartay dadku issue ay qaban karto hadii click siiyaan information markaas ay macnaheedu waxay tahay in halka adiga aad lacag saa u sameynayso marka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad taas wax ka faatiin hadii ka faa'iideyso waan muqtar xaaji saaxiibayaal iyo mar kale ma assalaamu